بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa Sahan Academy hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha wali waxaan ku gudi jirnaa course-kii aynu ugu magac darnay Food Science and Nutrition oo markaasi ah course aynu ku baranayno cilmiga cuntada iyo sidoo kale cilmiga nafaqada waxaan maraynaa lesson 57 oo markaasi ah cashirka 57 ama 57 cashirkana waxaynu kaga hadli doonaa mid kamid ah vitaminada loo yaqaan B complex waxaana kaga hadli doonaa vitamin B9 waxaan filaa 56 aynu horey u soo daawanay si fiican loo wada fahmay haday jiraan su'aalo ku saabsan 56 cashir waad ina soo weydiin kartaa WhatsApp ayaad nagala soo hadli kartaa ama email ayaad inoo soo diri kartaa adigoo emailkaaga cinwaan uga dhigay qaybta aad doonaysid inaad su'aal naga weydiiso sidoo kale waxaan filaa talooyinkii aan muuqaaladii hore ka jeediyay la qaatay ama hadda kadib la qaadan doono taa ku saabsanayd in cilmiga aad baranayso waxyaabo badan oo ku saabsan inaad raadiso aynu gudaha u gal marka course-ka Food Science and Nutrition lesson 57 aan marayno cashirka 57 vitamin B9 ayaan marayna markaas cashirkeena aynu kaga hadli doona vitamin B9 sidoo kale waxa loo yaqaanaa folate ayaa loo yaqaanaa ama folic acid ayaa loo yaqaanaa isaga folate-ka natural ahaan waxa laga helaa vitamin B9 ka laga helaa oo markaasi ah water soluble ah vitaminada biyaha ku milma ah si natural ahaan ama dabiici ahaan waxa loogu helaa inta badan cunooyinka waa laga helaa sidoo kale isaga waxa lagu daraa cuntooyinka waa lagu daraa iyo sidoo kale waxyaabaha markaasi adeega ah waxa waaye solid-ka ah si markaasi wax markaasi ku filan markaasi ay u siiyaan yani folic acid oo markaasi ku filan si loo helo tani marka waxa loo qabtaa si markaasi absorption-ka jirka ka dhacayo uu kaga fiicnaado yani uu u wanaajiyo qiyaastii 85 ilaa 50 sida isugu xigaanba marka la joogo marka folate-ka ama folic acid-ka oo sidoo kale loo yaqaan vitamin B9 isaga wuxuu ku caawiyaa in la sameeyo DNA iyo RNA taasoo markaasi ay ku lug leedahay burburinta loo yaqaan ama burburinta ay sameeyso proteinska isaga sidoo kale wuxuu ka ciyaaraa door aad u weyn ayaa wuxuu ka ciyaaraa dhanka iyo burburinta yani waxyaabaha homocysteine wax lagu magacaabo yani waxa waaye cells-ka oo homoga ah oo same-ka ah oo markaasi ah amino acid kaasoo markaasi laga saaray waxyaabaha khatarta u keeni karo jirka laga saaray hadii markaasi laga helo hadii aad u badan laga helo isaga ayaa ka saarayo folate-ka ama folic acid-ka vitamin B9 ka sidoo kale loo yaqaano isaga sidoo kale waa loo baahan yahay si loo markaasi loo soo saaro yani RBC oo markaasi caafimaad qaba si loo soo saaro iyo sidoo kale yani waxa waa xilliyada marka la joogo koritaanka si looga dhigo xaaladda koritaanka mid aad u fiican sida waxa kamid ah marka lagu guda jiro uurka iyo sidoo kale fetal development-ga ama horumarka uu sameynayo uurku jirta food sources-ka cunooyinka laga helo vitamin B9 ka ama folic acid-ka aad iyo marka u kala duwan yihiin laakiin si caadi ahaan markaan u fiirino folate-ka isaga waxa waaye cunooyin badan waa laga helaa hayeeshe isaga waxa waaye waxa markaas isaga loo sameeyaa oo lagu dari kara cuntooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha ay qaniga ku yihiin folic acid-ka marka laga hadlayo isaga ayaa ah midka ugu fiican ee jirka markaasi absorption uu ku sameynayo food sources-ka oo markaasi folate-ka waxay isugu jiraan waxa waaye dark green leaf vegetables waxa waaye qudrada yani caleentoodu ay cagaar oo markaasi daag oo mugdi ay tahay beans waa laga helaa digiraha peanuts oo markaasi ah digiraha noocyada markaasi dhaxdooda looska oo kala ah waa laga helaa sunflower seeds waa laga helaa waxa waaye sunflower seeds waxa waaye gabalday waxaan dhahno waaye waxa waaye mir waaye oo wax leh oo qoraxdaas marka ku tiirsan magaca ka garan kartaa sunflower seeds fresh fruits-kana waa laga helaa iyo fruit juices-ka waa laga helaa miraha markaasi saafiga ah sidoo kale waxa laga helaa whole grains miraha oo dhan waa laga helaa liverka beerka waa laga helaa vitamin B9 seafood cunooyinka oo badda oo dhan malaayga iyo sidoo kale noocyadiisa kala duwan eegiskana waa laga helaa oo markaasi loola jeedo ukunta markana waxaan aadaynaa function shaqooyinka uu qabto vitamin B9 ka sidoo kale loo yaqaan folate isaga wuxuu u shaqeeyaa coenzyme yani caawiye ahaan ayuu jirka markaasi ugu shaqeeyaa isaga wuxuu qabtaa shaqooyin badan waxa waaye wuxuu jirka u siiyaa waxyaabo badan oo u baahan yahay sida methane-ka oo markaasi CH3 ah sidoo kale methylene oo CH2 ah waxa waaye isaga wuxuu ka qayb qaataa falgalo kala duwan oo muhiim u ah jirka
si loo sameeyo metabolism loogu sameeyo ama burburin loogu sameeyo wax la yiraahdo nucleic acid iyo amino acids-ka sidaas darteed marka folate-ka oo vitamin B9 sidoo kale loo yaqaano wuxuu muhiim u yahay dhammaan unugyada nool si uu u ilaaliyo shaqooyinkooda asaasiga ah markana waxaan aadaynaa dosage oo markaasi ah cabirka inta waxa waaye waa age-ka male waxa waaye female pregnancy data lactation markay sameynayso markay cunuga markuu dhasho ilaa 6 bilood waxa laga rabaa waxa waaye 65 microgram ayaa markaasi laga rabaa in uu qaato maalintii 65 microgram ayaa laga rabaa cunuga marka inuu qaato marka laga hadlayo ilmaha markay yar yihiin waxa waaye dietary folate equivalent ayaa marka laga soo gaabay DFE maalintii yani cunooyin oo folate-ka laga helo oo ku filan waa inuu qaataa female-ka ama gabadha dayta 65 microgram ayaa laga rabaa maalintii inay qaadato 7 ilaa 12 jir 80 microgram ayaa laga rabaa labadoodaba 1 ilaa 3 jir labadoodaba waxa laga rabaa waa wiil iyo gabadhba 150 microgram waa dietary folate equivalent 4 ilaa 8 sano waa labadoodaba ama wiilka iyo gabadhba waxa laga rabaa inay qaataan maalintii 200 oo microgram 9 ilaa 13 jir 300 oo microgram ayaa laga rabaa 14 jir ilaa 18 jir wiil iyo gabar waxa laga rabaa 400 microgram ha yeeshee hadii pregnancy ay tahay ay uur leedahay waxa laga rabaa inay qaadato maalintii 600 oo microgram hadii markaas lactation ama nuujin ay sameeynaysan waxa laga rabaa inay qaadato maalintii 500 oo microgram 19 iyo wixii ka badan waxa laga rabaa wiilka oo kale 400 microgram gabadha hadii aysan uur lahayn ama lactation nuujin aysan sameynaynin waxa laga rabaa inay qaadato 400 microgram oo wiilka ay la mid tahay ama laakiin markay pregnancy tahay ama ay uur leedahay waxa laga rabaa 600 microgram oo waxa way dietary folate equivalent ah hadii lactation ay sameynayso ama naas nuujin ay sameynaysan waxa laga rabaa maalintii inay qaadato waxa loo yaqaan 500 oo microgram cashirkeenana inta ayaan ku soo gabagabeynayna inta aynu ku kulmi doono cashirka xiga waxaan idinkaga tageynaa sida ay nabadiino wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh